الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله مقال كينا وحين كأهل دونا ملبك إيه فائدة ديسا نمحوين كإلهي وحا كمد أهينو إنو أبوري خيرات دبيعي وحانا كمد خيرات كاس ملبك الشنيدو أي سو صارتو الله سبحانه وتعالى وحو أمان الشنيدة هنا مقع داري سورة مقعد سورة سورة النحل وحكلو الله سبحانه وتعالى ملبك كتل مامين وداوو يهيتدك قال الله تعالى في سورة النحل فيه شفاء للناس وحاوجر تدك شفاء عافمات رسولكنا نحرسي نبذكر يكركيسا هاته وحاويري عليكم بالشفاءين العسل والقرآن كركين هاتو استعمال لبضى الشفاء وحداوية القرآن كأي ملبك وحكى النبي كان عليه الصلاة والسلام لقصوريه إنه يري سيدا لقصوري ابن عباس الله كرر لنقضي الشفاء ثلاثة وحيابا شفاء وصدح مويا وحانا كمدها شربة العسل ملبكو لعبو دخاتير تقيب كمدها هنا وحا يكود ويا حنونا فربضا ملبكو خاصة ما النوع يدا ملبكو وحا كجرت مادات وقوة بضن أو كورتكت بكتيريا دا وحا كلاو لعدايا إن ملبكو فائدة وين وليه حيدوين تا infection كقطع إردكا يشوشكا يلكاها قطع waxa kale oo uu tamar aad weyn u leeyahay daweynta xanuunka calool fadhiga tijaabooyin la sameeyay ayaa waxa lagu ogaaday in loo isticmaali karo malabka maqaarka xuqmay iyo waliba in lagu daweyn karo kansarka ku dhaca maqaarka sidoo kale malabku waxa uu saameyn ku leeyahay kicinta awoodda jirka iyo awoodda lagu daweynayo madhaleysnimada malabku waxa uu faa'iido weyn u leeyahay dhallaanka ama carruurta isaga oo ka ilaalinaya inay ku dhacdo dhiig yari ama cudurka loo yaqaano buskudowga sidoo kale malabka waxa loo tixgeliyaa inuu leeyahay walax tajisa nafta maxaa yeelay waxa uu ka kooban yahay maadooyin saameyn badan ku leh bini'aadamka wuxuuna ka dhigayaa qofka caba mid dareemaya xasilooni iyo deganaansho aad u fara badan waxa kale oo uu daawo u yahay malabku hargabka iyo qufca aadka u faraha badan haddaba malabka faa'iidooyinkiisu aad ayay u badan yihiin inaas baynu kusoo koobaynaa insha Allah ta'ala barnaamijkeena haddii aad haysid faa'iidooyin ama waxyaabo ka gadisan inta aan soo sheegnay insha Allah hoosta nugula wadaag. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.